newsyo badan baa jiray maanta hadda newsyada eego waxaan arkay in SP500 uu kacay 2% shalay taasoo suuqa u fiican ilaa 850 bilyanna lagu daray suuqa sidoo kale suuqyada maraykanku waxay hadda qiimeynayaan in 98 fursad ah in fedku uu samayn doono interest rate kadka ay gaadhay heerka dulsaarka marka 3.75 ilaa 4 gaadhay percentage kulanka dhici doono marka October in la jari doono ilaa 100% boqolkiiba boqol ayay hadda ku dhowdahay hal bilyan oo dollar ayay daabaceen USDT shirkadda Tether xalay ilaa shalay sidoo kale waxaan arkayay in ka badan 440 milyan oo crypto tokens unlock ah wiiga la furi doono insha Allah waxaa ugu waaweyn coinan kala furi doona Sol iyo Trump iyo Doge iyo Avax iyo Aster iyo Sui marka coinankaas hadda isha lagu hayaa sidoo kale waxaan arkay in baarlamaanka Kenya ay ansixiyeen sharci cusub oo nidaaminaya cryptocurrency-ga hantida digital asset-ka iyadoo lagu doonayo in dalka loo soo jiito maalgelin iyo horumarin dhaqaale sida ay sheegtay Reuters soo Kenya hadda iyaduna hormuud ayay doonaysaa inay noqoto xagga iyo digitalka crypto soo insha Allah waxaan rajeynaynaa in inaguna aynu ku xigi doono sidoo kale Ripple ayaa isku kaashatay shirkadda Lamfi si ay u bilowdo 200,000 oo maxay tolay adkooda oo lagu tijaabinayo in lagu xoojiyo XRP Ledger protocolkeeda sidoo kale BlackRock IBT ayaa iibsaday 525 BTC oo qiimeedu yahay 60.4 milyan bishii October 13keedii iyadoo inta kalena ay suuqa ay maxay tolay aad u iibinayeen iyadoo aad bay u urursanaysay sidoo kale waxaan arkayay in Solana ay si hogaaminayso qiimaha dhaqaale ee dhabta ah ee blockchain-ada ama real economic value waxa loo yaqaano iyadoo gaadhay 223 milyan Q3 halka Tron uu ku xigo 160 milyan ay sameeyeen sidoo kale BlackRock maanta waa ay iska iibisay Ethereum aad u badan 310 milyan oo dollar waana arrintii maanta suuqa daadisay sidoo kale waxaan arkayay in Shiinuhu uu xaqiijiyay wada hadallo xagga shaqaalaha una la yeelan doono Mareykanka oo ku saabsan cashuuraha iyo xakamaynta dhoofitaanka wararka kale ugu wanaagsan waxaa ka mid ah suuqa in Jack Ma asaasaha maxay tolay madashan caanka ah ee la yiraahdo Alibaba oo hadda uu doonayo inuu sameeyo kayd istiraatiiji oo Ethereum waxaan aaminsan yahay in Ethereum ay gaari doonto 10,000 iyo ka badan sidoo kale Jerome Powell baa maanta hadlayay khudbadiisa dhowr qaybood buu u qaybsamay laakiin haddaanan eegin JP Morgan ayaa sheegay inuu ogolaan doono macaamiishiisa inay ka ganacsadaan crypto currency sidoo kale waxaan arkay inuu Shiinuhu adkeeyay kormeerka dhoofinta magnetka dhifya naadirka qaaliga iyadoo gaadhay heer dagaal ganacsi ah bishii Abriil ee la soo dhaafay sidoo kale Metabalance-iduna aad bay maanta isaga iibinaysay Bitcoin waxaana hadda Bitcoin-teeda ku soo hadhay 38,823 BTC inay haystaan maanta suuqa waxaa la liquid gareeyay 250 milyan ayaa la liquid gareeyay 4 saacadood ee u dambeeyay sidoo kale waxaan arkay in iyaduna ay madaxa BlackRock ku sheegay in shirkadda ay horumarinayso teknolojiyadeeda gaarka ee RWA-ga madaxweynaha Mareykanka ayaa isaguna markaa qorsheynaya in Xi Jinping madaxweynaha Shiinaha uu la yeesho kulan waxaana arrintaa xaqiijiyay aqalka cad in kulanka la qaban doono Fedka Jerome Powell baa hadlayay khudbadiisa waxaa ka mid ah inuu sheegay kobaca dhaqaale la xiriira xiritaanka dowladda ama government shutdown inuu noqon karo mid ka wanaagsan sidii la filayay sidoo kale wuxuu sheegay Powell inuu xogaa in xogta dhaqaaqa ee dhaqaalaha ay ahayd mid lama filaan ah wanaagsan oo surprising ah oo uu ku tilmaamay surprising to the upside sidoo kale waxa uu ka cudur daartay inuu ka hadlo Jerome Powell Bitcoin goldka midna kama hadli doono ayuu yidhi waxaana uu arkaa in sicir bararka inflationku uu ka dhasho arrimaha asaasiga ah ee sahayda iyo dalabka ama fundamental supply iyo demand factorieska waxa la yiraahdo ugu dambeyn Jerome Powell wuxuu tilmaamay in bangiga dhexe uu ku dhawaan karo dhamaadka ololaha in ka badan 3 sano oo soo socday oo lagu yareynayo kaydkiisa treasury kuwaas oo la iibsaday si loo ansixiyo loo bixiyo dhiirigelin dhaqaale kadib maxay tolay masiibadii 2022 ku habsatay inahaas ugu waaweynaan niyuusada